waa iga dhab in aad tahay qofka keliya aan dadka ka fiirsado. Kuma qanco hadal aan kaaga ahay, kuma farxo farxad aan taada ahay. Ima deeqo araggaaga waxaan ahay, sida dhirta biyuhu ugu baahdaan ayaan anna adiga kuugu baahdaa. Xanuun iyo murugo waxaa igu filan intaad iga maqan tahay wakhtiyada qaar aan keliga ahay. Qofka dhimanaya sabab ayuu ku dhintaa, balse qofka wax jeclaanaya sabab la'aan ayuu wax jeclaadaa. Lamaano kasta oo wada socda kama maseero, waayo qof adiga kaa wanaagsan oo aan la socon lahaa maanta maba jiro. Wakhtigan adiga ku hayo wuxuu ka badan yahay wakhti kasta oo aan qof kale u hayo. Sidaan adiga ku jeclahay Ilaah unbaa og, waayo intaad adiga og tahay in ka badan ayaan ku jeclahay aniga. Hal marka hal lagu daro waa laba, balse aniga marka laygu kaa daro adiga waxaan nahay hal. Ma og tahay waxa halka naga dhigay ee na mideeyey inuu yahay jacaylka? Ma seexdo anigoon daawan sawiradaada iyo qoraalladaada qaar. Waxa mar walba ii wehel ah waa araggaaga. Si kastaan u arko, niyadda ayaa igu qabowda. Nolosha farxad kale kama fisho ilaa mid aan adiga kaa helo mooyaane. Farxad kastaan helana adiga la'aantaada farxad iima noqoto. Raaligelintu waa sifo dhif ah oo laga helo kuwa daacadda ah sida adiga oo kale. Qof waliba cilad buu yeelan karaa, wuuna leeyahay, balse qofka saamaxa ayaa tahay wax kastoo ka dhaca dhexdeena. waxaa tahay ruux ammaan ka dhan xag kasta. Jacayl wax ka weyn oo laysku qaado hadduu jiro adigan kuu qaadi lahaa, balse waxaan ku leeyahay waxba iigama harin casharada jacaylkaaga. Guurka mooyaane waxaan Alle ka baryaa inuu igu kaasimo aayaha dambe.